بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal insha allahu tacaala waxa aynu wax ka tilmaami doonaa sheeko waaqica ama qiso dhacday oo ku saabsiisan nin dameerla ahaa oo noqday madaxweyne. ma dameerla noqday madaxweyne? bal haddaba sheekadan cajiibka ah iyo la yaabkan u fiirsada walaalayaal. waxaa jiray 3 nin oo saaxiiba ahaa. waxay degganaayeen waddanka andalus, waa waddamadan iminka Spain iyo Portugal. waa markaa muslimiintu ay ka talinayeen. marka 3 nin saaxiibay ahaayeen, dameerana way lahaayeen ay ku shaqaystaan oo alaabta markaa ay ku sii qaadaan kuna soo qaadaan, sidaana ay ujuurad iyo mushahar ama lacag ay ku helaan. marka waa tagsiga oo kale, tagsiilayaal bay ahaayeen wakhtiga. 3 nin habeenada ka mida bay wada fadhiisteen. marka nin walba wuxuu isweydiiyey, wartalow nin yahow mustaqbalka maxaad noqonaysaa, maxaad jeceshahay inaad mustaqbalka noqotid? 2 nin waxay dhaheen, annagu waxaanu noqonayaa in dameerkaygaas dameero kale ay igu soo kordhaan oo dhowr ay noqdaan, oo markaa aan xoolo badan helo, suuq badanna aan helo. ninkii 3aad wuxuu yidhi, anigu waxaan doonayaa inaan noqdo madaxweynaha iyo khaliifka ka talinaya dowladda muslimiinta oo dhan. dadkii waa la yaabeen. madaxweyne ah way cajabeen, way amakaageen. waxay dhaheen wax caqliga geli karaya maaha, suurtagal maaha, waa impossible, waa min almustaxiilaat, waa waxaan caqliga bani aadamka gelin, abadulaabidiin, suurtagal maaha. subxaan allah, qof dameerlahi sidee buu uguba fakeri karaa? fikraddaasi sidee bay ugu soo dhici kartaa? ayaaba ka dhaadhicsanayd ayaga in aanay xitaa fikradda noocaas ahi inaanay kuba soo dhici karayn. ninkii wuxuu yidhi, waay ma dhici karaysa soo maaha? waa yahay buu dhahay. dabadeedna 2 nin buu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi, markaan anigu madaxweynaha ka noqdo waddankan maxaan ku siiyaa? markaa mid ka midabaa wuxuu dhahay, aniga haddaad madaxweyne noqotid qasri weynaysi, 4 dumarana ii guuri, xoolo aan isku biilo oo aan quutanaysi. kii 2aad oo beerka intuu dhulka dhiga lugahana sare u qaaday, ama kaag iyo cajab uu la yaaban yahay ninkaa fikraddiisi iyo aragtidiisi, ayaa wuxuu yidhi, haddaad madaxweyne waddanka ka noqotid, aniga wejigayga daamur mari oo madoobee. subxaan allah. kadibna intaad lugta igu xidhid faras, suuqa si ay igu soo wareeji, iyo magaalada waxaad tidhahda haadaa kadaab, kaasi waa beenaalihii. waa yahay buu yidhi ninkii. maalintii ku xigtay ayuu dameerkiisii iibiyey. dadkiibaa ku soo yaacay, haweenaydiisii, carruurtiisii yaryarayd way ka daba qayliyeen, war dameerka maxaad u iibinaysa? war maxaanu quudanayn? war bil ma haysanno. umuu joojinin. nin calool adag buu ahaa. dameerkii buu iibiyey. wuxuu soo iibsaday maryaha ama dharka bilayska ama askartu ay xidhato. waxaa kale uu soo iibsaday hubka xilligaa la isticmaali jiray ee askartu ay qaadanaysay, oo dee seeftii iyo warankii iyo fallaadhii iyo leebkii iyo qaansadii ayuu soo iibsaday. deetana wuxuu tegay makhfari shurta, meelaha markaa laga qoro dadka askarta ah. askari buu noqday ninkii. maadaama aanu khibrad lahayn, cidi mushahar maysan siinin, waxaa la yidhi waxbaro marka hore. askari buu noqday. wuu bilaabay markaa heerkii 1aad. ilamaa iyo markii la arkay ninkan inuu daacad yahay, waxoogaa la siiyey mushahar. haddana uu ka sii dallacay xidigle, 2 xidigle. way sii socotay. corneyl buu gaadhay. muddaa ka soo wareegtay. jenaraal ciidan buu gaadhay. muddo 30 sannadood markay ka soo wareegtay arrintaas, ayaa ninkii wuxuu noqday ra'su shurda, madaxweynaha booliska oo dhan ama askarta oo dhan. ama si kale haddaynu tilmaamno xilligeennan dadka nool, wuxuu u dhigmi karaa wasiirka gaashandhig ama wasiirka difaaca. waa kuma? waa dameerlihii. subxaan allah. hami iyo hadaf buu leeyahay iyo hiigsi. waxa dhacday haddaba walaalayaal
markay 30 sannadood ay ka soo wareegtay dhacdadaas ayaa ninkii khaliifka ka ahaa dowladda madaxweynaha ka ahaa ayaa bukoodo uu xanuustay dabadeedna markuu arkay inay geeridii ku soo dhowaatay ayaa wuxuu yeedhay wasiirkiisan dee gaashaandhigga u haysta ciidanka iyo militariga oo dhan deetana wuxuu ku yidhi wiil yar baan leey oo 10 sannadood ka yar da'diisu wakhtigana waa la kala dhexli jiray boqortooyada marka wiilkaygaas ilaa inta uu ka qaangaadhayo adigu madax ka sii noqo dowladda ninkii wuu dhintay dabadeedna ninkii dameerlaha ahaabaa madaxweyne noqday yaab ama ha yaabin ninkii markuu madaxweynaha noqday ee uu askar yeeshay ee uu ciidamo yeeshay ee wasari iyo xawaashi iyo dadku ag weeragaaraysan uu yeeshay ayuu wuxuu dhahay labadii nin ha laygu yeedho labada ninna dee way maqleen ninkan inuu marba dallacayay oo mar korneel uu ahaa mar genaraal uu ahaa warkiisa way maqlayeen waxaa la soo qabtay labadii nin oo isla shaqadii 30 sannadood ka hor ku jira weli dameerlayaal ah laa xawla walaa quwwata illa billah waa la soo qabtay ninkii buu u yeedhay markaa ku yidhi waxaan u baahanahay anigu qasri waa ninkii dhiiri gelinay wuxuu ku yidhi warkaalay qasrigiisa ninkan ha la siiyo haweenku doonayana ha loo guuriyo xoolihii uu rabana ha la siiyo kii kale u yeedhay wuxuu ku yidhi warkaalay adigu maxaa tidhi maalintii ninkii waa cabsanaya iminka waa argagaxsan yihin wuxuu yidhi boqorow iska kay cafi madaxweynew iska kay cafi wax lagu cafinayaa ma jirtee wixii aad tidhi sheeg dabadeedna wuxuu yidhi waxaan idhi wejigayga ha la madoobeey oo daamur ha la mariyo lugtana dameer iyo faras midun ha laygu xidho suuqa ha laygu soo wareejiyo ha la dhaho waa beenaale wuxuu ku dhahay askartiisii fala sidaa wejigiibay loo madoobeey suuqii baa lagu soo wareeji waa beenaale waa beenaale waa beenaale laa xawla walaa quwwata illa billah ninkaasi walaalayaal waayo waa nin dameerla ah weligaa marna ma istidha caqligaaga way geli kartaa in qof nolosha halkaa hoose kaga nool inuu hamigiisa u xaqiijin karo hadduu hadafkiisa uu cayimo dabcan haa waa suurtagal way dhici kartaa qisadaas iyo walaal sheekadaasi kutubada mu'arrikhiinta ayaa soo arooriyey marka kulliba sal bay leedahay oo waa sheeko waaqic ah oo dhacday bay ahayd waxayna daliilu tahay walaalayaal in ruuxa bani aadamka ahi waxa uu go'aansado ee uu xadido u dhahdo hadafkaygu sidaa weeye waxaasan doonayaa noloshaan ka leeyahay haddii ay ka dhab tahay oo uu shaygana uu rabo oo rabitaan iyo jacayl uu hayo inuu gaadhi karo keliya waxaad u baahan tahay inaad khiddo iyo qorshe iyo bilaan aad ku gaadhid aad la timaadid marka haddaad doonaysid walaalayaal inaad noqotid nin taajiro xoole leh oo milyaneera haddaad doonaysid inaad noqotid ood jeceshahay anigu waxaan ku leeyahay waad noqon kartaa haddaad doonaysid madaxweyne muslimiinta ah oo dadka muslimiinta wax tara waad noqon kartaa keliya waxay ku xidhan tahay iraadadaada iyo doonistaada ma rabtaa waxa kan haa hadday tahay haddaba dhabee waad xaqiijin kartaa hadafkaagana waad gaadhi kartaa dameerlahana ku tusaale qaado heerka uu ka gaadhay markaa noloshiisii iyo hamigii iyo hadafkii uu lahaa bal hadda siduu u xaqiijiy ilaahay baynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inaga yeelo kuwa hadafkooda ku xaqiijiya addunya aakhira hada wallahu aclam wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu askarta ah askari buu noqday ninkii maadaamaanu khibrad lahayn cidi mushahar maysan siinin waxaa la yidhi waxbaro marka hore askari buu noqday wuu bilaabay markaa heerkii koowaad ilamaa iyo markii la arkay ninkan inuu daacad yahay waxoogaa la siiyey mushahar haddana uu ka sii dallacay xidigle 2 xidigle way sii socotay korneyl buu gaadhay muddaa ka soo wareegtay genaraal ciidan buu gaadhay muddo 30 sannadood markay ka soo wareegtay arrintaas ayaa ninkii wuxuu noqday ra'su shurda madaxweynaha booliska oo dhan ama askarta oo dhan
ama si kale haddaynu tilmaamno xilligeennan dadka nool wuxuu u dhigmi karaa wasiirka gaashandhig ama wasiirka difaaca. waa kuma waa dameerlihii subxaan allah. hami iyo hadaf buu leeyahay iyo hiigsi. waxa dhacday haddaba walaalayaal, markay 30 sannadood ay ka soo wareegtay dhacdadaas, ayaa ninkii khaliifka ka ahaa dowladda, madaxweynaha ka ahaa, ayaa bukooda uu xanuustay. dabadeedna markuu arkay inay geeridii ku soo dhowaatay, ayaa wuxuu yeedhay wasiirkiisan dee gaashaandhigga u haysta ciidanka iyo militariga oo dhan. in yahow mustaqbalka maxaad noqonaysaa, maxaad jeceshahay inaad mustaqbalka noqotid? 2 nin waxay dhaheen, annagu waxaanu noqonayaa in dameerkaygaas dameerro kale ay igu soo kordhaan oo dhowr ay noqdaan, oo markaa aan xoolo badan helo, suuq badanna aan helo. ninkii saddexaad wuxuu yidhi, anigu waxaan doonayaa inaan noqdo madaxweynaha iyo khaliifka ka talinaya dowladda muslimiinta oo dhan. dadkii waa la yaabeen. madaxweyne ah way cajabeen, way amakaageen. waxay dhaheen wax caqliga geli karaya maaha, suurtagal maaha, waa impossible, waa min almustaxiilaat, waa waxaan caqliga bani aadamka gelin, abadulaabidiin, suurtagal maaha. subxaan allah, qof dameerlahi sidee buu uguba fakeri karaa? fikraddaasi sidee bay ugu soo dhici kartaa? ayaaba ka dhaadhicsanayd ayaga inaanay xitaa fikradda noocaas ahi inaanay kuba soo dhici karayn. ninkii wuxuu yidhi, waay ma dhici karayso soo maaha? waa yahay buu dhahay. dabadeedna 2 nin buu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi, markaan anigu madaxweynaha ka noqdo waddankan maxaan ku siiyaa? markaa mid ka midabaa wuxuu dhahay, deetana wuxuu ku yidhi, wiil yar baan leey oo 10 sannadood ka yar da'diisu. wakhtigana waa la kala dhexli jiray boqortooyada. markaa wiilkaygaas ilaa inta uu ka qaangaadhayo adigu madax ka sii noqo dowladda. ninkii wuu dhintay. dabadeedna ninkii dameerlaha ahaabaa madaxweyne noqday. yaab ama ha yaabin. ninkii markuu madaxweynaha noqday ee uu askar yeeshay, ee uu ciidamo yeeshay, ee wasare iyo xawaashi iyo dadku ag weeragaaraysan uu yeeshay, ayuu wuxuu dhahay 2 nin ha laygu yeedho. 2 ninna dee way maqleen ninkan inuu marba dallacayay, oo mar korneel uu ahaa, mar genaraal uu ahaa, warkiisa way maqlayeen. waxa la soo qabtay 2 nin oo isla shaqadii 30 sannadood ka hor ku jira, weli dameerlayaal ah. laa xawla walaa quwata illa billah. waa la soo qabtay. ninkiibuu u yeedhay markaa, ku yidhi, waxaan u baahanahay anigu qasri. waa ninkii dhiiri gelinay. wuxuu ku yidhi, warkaalay, qasrigiisa ninkan ha la siiyey, haweenku doonayana ha loo guuriye, xoolihii uu rabana ha la siiyo. kii kale u yeedhay. wuxuu ku yidhi, warkaalay, adigu maxaa tidhi maalintii? bismi illaahi araxmaan araxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wabihi nastaciinuhu cala umuuri addunya waddiin. وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal, insha allahu tacaala waxa aynu wax ka tilmaami doonaa sheeko waaqica ama qiso dhacday oo ku saabsiisan nin dameerla ahaa oo noqday madaxweyne. oo ma dameerla noqday madaxweyne? bal haddaba sheekadan cajiibka ah iyo la yaabkan u fiirsada walaalayaal. waxaa jiray 3 nin oo saaxiiba ahaa. waxay degganaayeen waddanka andalus. waa waddamadan iminka Spain iyo Portugal. waa waddanka oo markaa muslimiintu ay ka talinayeen. marka 3 nin saaxiibay ahaayeen, dameerrana way lahaayeen ay ku shaqaystaan oo alaabta markaa ay ku sii qaadaan kuna soo qaadaan, sidaana ay ujuurad iyo mushahar ama lacag ay ku helaan. marka waa tagsiga oo kale, tagsiilayaal bay ahaayeen wakhtiga. 3 nin habeenada ka mida bay wada fadhiisteen. marka nin walba wuxuu isweydiiyey, wartalow, aniga haddaad madaxweyne noqotid qasri weynaysi, 4 dumarana ii guuri, xoolo aan isku biilo oo aan quutanaysi. kii labaad oo beerka intuu dhulka dhiga lugahana sare u qaaday, ama kaag iyo cajab uu la yaaban yahay ninkaa fikraddiisi iyo aragtidiisi, ayaa wuxuu yidhi, haddaad madaxweyne waddanka ka noqotid,
aniga wejigayga daamur mari oo madoobe subxaanallah kadibna intaad lugta igu xidhid faras suuqa saa igu soo wareeji iyo magaalada waxaad tidhahda hada kadaab kaasi waa beenaalihii waayahay buu yidhi ninkii maalintii ku xigtay ayuu dameerkiisii iibiyey dadkiibaa ku soo yaacay haweenaydiisii carruurtiisii yaryarayd way ka daba qayliyeen war dameerka maxaad u iibinaysa war maxaanu quudanayn war bil ma haysanno umuu joojinin nin calool adag buu ahaa dameerkii buu iibiyey wuxuu soo iibsaday maryaha ama dharka bilayska ama askartu ay xidhato waxaa kale uu soo iibsaday hubka xilligaa la isticmaali jiray ee askartu ay qaadanaysay oo dee seeftii iyo warankii iyo fallaadhii iyo leebkii iyo qaansadii ayuu soo iibsaday deetana wuxuu tegay makhfari shurta meelaha marka laga qoro dadka